waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ilaahay baa mahad leh oo maanta halkan isu keenay munaasabadan quruxda badan. waxaan u mahad celinayaa cidda noo soo agaasintay, noo soo maamushay, iyo guud ahaan dadka nagala soo qayb galay. aad baan idinkaga mahad celinayaa. waxaa sharaf iyo farxad ii ah maanta inaan idinkala soo qayb galo munaasabadan ama xafladan quruxda badan oo ku suntan hirgelinta guddiga afraad ee af Soomaaliga. af Soomaaligu waa mid ka mid ah tiirarka sugaya jiritaanka ummadnimo ama ummadda Soomaaliyeed, waana afka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee u kala baxa maay iyo maxaan ku raahdaa maxaa tiri. 75 yaan halkan anoo caruura xaflad noocan oo kale uga soo qayb galay oo lagu maamuusayo af Soomaaliga kadib markii ololihii af Soomaaliga macallimiintii iyo dhalinyaradii iyo kulli ka soo noqdeen loo sameeyay riwaayad aad iyo aad u qurxoon oo aan weli sida aan hadda wax u arkayo aan u xasuusto. hadda heestii muusigeeda aad maqlayseen oo ahayd alif la kordhabay waxaa qaadi jirta allah u naxariistee Marin Cali Muudey. allah u naxariisto jannadiis naxariistiisa allah siiyo. marka heesaha saano kale loo qaadayo waa in la sheego heesta magaceeda, cidda qaaday iyo cidda curisay. Siciid Saalax ayaa isaguna heestaas curiyay, waa nool yahay, allah caafimaad siiyo. riwaayadaasi waxay ahayd riwaayad runtii ka turjumaysa shaqadii la qabtay u sameynaysa wacyigelin shacabka Soomaaliyeed in la sii xoojiyo. waa xasuustaa Sayid Khalifa nin la oran jiray yaa matalayay iyo Maryam Muudey, nin dhintay allah u naxariistee oo la oran jiray Cabdiraxmaan maxamed xasan dhegey yaa iska lahaa riwaayadda, laakiin wuxuu dhintay riwaayaddii oo ka harsan tahay usbuucyo. marka ilmaan ahaana waa la socday, macnaheedu waxaan ahaa dhalinyaro, qof dhalinyaro oo dhiiran ama dhiifan yaan ahaa. marka waxaasoo dhan waa dhaxal weeye oo u baahan in la sheego. heestii kale oo iyaguna ay qaadeen kooxda waa beri noo qaaday oo ahayd afqalaad aqoon tamiya, iyaduna waxaa aalifay allah u naxariisto Cali Sugulle. soo saas ma ahayn? allah u naxariisto. waxaana qaaday Magool, iyaduna allah u naxariisto, iyo Xasan Diiriye. marka heesahaas qurxoon markaan qaadayno waa in dadkoodina la sheego, aan laga dhigin wax cusub oo credit-ka la siiyo. waana wax lagu faano, wax aad iyo aad lagu faano weeye. waxyaabo badan oo xunxun runtii waa naga dhaceen muddooyinkii dambe oo aafo ku ah, foolxumo ku ah magaceennii Soomaaliyeed iyo dhaqankeennii Soomaaliyeed iyo dad ahaanba. laakiin waa inaan ku faano waxyaabaha wanaagsan oo awoowayaasheen ay sameeyeen. waxaa ka mid ah waxyaabo waxaa jira dad badan aysan arag, laakiin ay tahay hibe ilaahayna siiyey, wanaag ilaahayna siiyey, ma aragno. waxaa ka mid ah afkeennu waa af Soomaali, dadkeennu waa Soomaali, dalkeennu waa Soomaali, dhaqankeennu waa Soomaali. Afrika intaas dowladood oo la wada gumaystay qaarkood ma aqaan, waa khaldami karaa, laakiin waddan nala mid ah ma jiro. waddan dalkii Soomaali la yiraahdo, dadkiisa Soomaali la yiraahdo, afkiisa Soomaali la yiraahdo, dhaqankiisa Soomaali la yiraahdo, oo alxamdulillah diintiina diin islaanay tahay. wax naga nasiib badan ma laha, laakiin Soomaali intaas waxbay kala sarrifayaanoo wax ka sii hooseeya yay raadiyaan. Afrika markii la gumaystay, gumaysigii waa isku jabjabiyey, waa isu keenay qabiilo aan islahayn, dhaqamo aan islahayn, luqado aan islahayn,
dad aan islahayn yuu isu geeyey markaasuu weliba magac ka daba geeyey magac u bixiyey intaas kuma dhaafine wuxuu yidhi luqadeedana waa inaad ku hadashaan isku afgarataan intaasna ugama tegine diintii aan idiin keenna qaata yuu yidhi annaga intaas ilaahay waa naga badbaadiyey mana aragno ilaahina uguma xamdi naqno waxaan u qaadannay wax layska keen waxaan iska leenahay iyo noqoto yaan u qaadan marka waxaa loo baahan yahay waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabahan ku faani karno dhaqankeenna ama caadadeenna inaan xoojinno awoyaasheen waxay nooga tageen oo ah inaan ku faanno qaab ay wax isugu gudbiyaan oo xigmad badan soomaaliya waxaa lagu sheegaa ama lagu magacaabaa waddanka ugu gabayada badan adduunka yaa lagu magacaabaa gabayadaasna de waa soomaali waa murtiyeysan yihiin macnaa xooggan iyo xambaarsan yihiin waana geeraaro waana heeso weliba hadda masraxan oo kale waxa weeye majaajilana waa lagu daray oo afkii ah marka waxa weeye waxyaabo awoyaasheen ay dhaxal nooga tageen wey waxay nooga tageen awoyaasheen soomaali geeska africa waxaa lagu qiyaasaa 30 milyan yaa lagu qiyaasaa geeska africa hal luqad iyo hal dhaqan iyo leeyihiin marka waxa weeye wax lagu faano weeye in dadkii naga horreeyey ee luqaddii ay ilaa intaas gaarsiiyeen africa waa la gumaystay diintii baa laga beddelay afkii baa laga beddelay awoyaasheen waxay u adkaysteen dhib kasta u soo mareen marnaba inaan dhaqankooda la beddelin diintooda la beddelin afkoodana aan la beddelin marka runtii in aan mar walba xasuusnaanno oo aan ka fekerno wixii aan ku dari karno si jiilka soo socda iyagana ay u yidhaahdaan awoyaasheen waxbay nooga tageen ma aha burbur inaan uga tegayno iyo dhibaato iyo kala qaybsanaan iyo qabyaalad maaha inaan wax dhaxal reeb ah aan uga tegayno sida taasoo kale ah dowladdaani waxay ku bixisay ama ku bixinaysaa juhdi in la horumariyo dhaqankeenaas afkeenaas suugaanteenaas iyo murtideenna inaan horumarino waxaa qayb ka ah in hooygii hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed iyo wacyigelinta aan soo nooleenno oo aan ku dhisno isxilqaan xooggeenna inaan ku dhisno awooddeenna aan ku muujinno dadnimadeennii aan tusno caalamka soomaali waa soo noolaatay way soo noqotay rajadeedii way soo noqotay waana shaqaysanaysaa waxna waa qabsanaysaa waxa weeye in aan tiyaatarkan sidiisii aan ku soo celinno in aan madxafkii qaranka soo celinno astaamihii qaranka iyo halyeyadii soomaaliyeed ileen dad taariikh lahaan nahay oo saan sheegay awoyaal yaan leenahay oo u soo halgamay soomaali inaan luqadda laga beddelin inaan xusno oo aan taalooyin u samayno oo qof walba oo soomaali ah markuu ag maraayo uu yidhaahdo dadkan markay ugu yar tahay maxay ahaayeen taariikhdoodu maxay ahayd oo la baro dadka yaqaanana dee waa yaqaanaanoo iyagaa dadka kala baraya marka dowladdeennu oo idinku aad ka tihiin xubno ka tihiin shacabka soomaaliyeedna ay leeyihiin dowladda waxaan u istaagnay inaan horumarinno hiddaheenna dhaqankeenna iyo wax wanaagsan soomaali ay leedahay oo ay ku faani karto waxaan soo celinnay 24 iskuul oo beelaha ahaa yaan soo celinnay dib baan u dhisnay 64,000 oo arday ah yaa wax ka barata manhajkii waxbarashada oo af soomaali ku qoran galaaska koowaad ilaa ka 12aad isagana dalkoo dhan yaan gaarsiinay manhajkaasi waa manhaj af soomaali ku qoran oo qof walba oo soomaaliya uu akhrisan karo uuna isbari karo isaga naftigiisa ama isbari karto aqoonta af soomaaliya iyo ku akhrisan karaan waxaan qaybinay milyan iyo xoogaa buugaag ah yaan qaybinay oo aan meel walba gaarsiinay taasna macnaheedu waxa weeye inaan xoojinno dhaqankeenna iyo afkeenna inaan xoojinno aqoontu waa sidii la sheegay aqoontu luqad ma laha aqoontu luqad ma laha marka inaan ku xoojinno luqaddeenna oo mar walba aan u helno
eray bixinno oo scientific ah oo science ah inaan u helno waxaan rabaa inaan kula dardaarmo guddiga af Soomaaliga waxaan rabaa inaan kula dardaarmo akademiya cilmiga fanka iyo suugaanta in ay xoojiyaan inay afka Soomaaliga xoojiyaan maxaa yeelay waxa weeye waa bilaabatay dawlad kasta oo Soomaaliyeed waxa weeye waxa ka saaran mas'uuliyad in afkaas hodanka aan leenahay oo kumaanku ka sana jiray oo aan qorannay in la xoojiyo oo jiilka soo socda ay naga dhaxlaan hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan kula dardaarmayaa inaan gelino dadaal badan waxaan kula dardaarmayaa inaan gelino maskax aad iyo aad u fara badan maalna aan gelino taasna waxay ku suurtoobaysaa in dawladdu ay adag tahay dawladdu iyo shacabkuna inay iswataan dhaqaale loo huraayo suugaanta iyo afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinteenna suuban dhaqaale loo huraayo waxayna ku imaan kartaa iyadoo ay jirto dawlad dadku ay raali ka yihiin oo ay ku kalsoon yihiin oo xoog leh hadday noqoto cudud iyo hadday noqoto dhaqaale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh